hooyaday ayaa jira waalida ah hooyaday ayaa jirada waalida ay haysay inta aysan dhalin ka hor waalidkay jidka ayay ku daayeen iyadoo jiran marka waxa dhacday maalin in la kufsaday hooyaday aniga ayay uurkayga qaaday sida ayayna hooyaday aabulaan igu dhashay adduunka ciil iyo cuqdad ayaan ku noolahay marka diintu maxay ka qabtaa waa su'aasha koowaad midda labaadna waxay u soo qortay waxa jira rag badan oo raba inay guursadaan guri ii soo bandhigay balse anigu waxaan u guursan laahay waxaan diidayaa inaan u sheegin ahay aabalaan oo hooyaday muxuu ahaa aabalaan ay dhashay marka sheekhow dadkaasi anigoo ka qarinaya miyaan muxuu ahaa guursan karaa alxamdulilah horta dhacdooyinka sidan oo kaleeta siyaabo badan bay ku yimaadaan ma doonayo hadalkaygu qofkan oo hadalka ka muuqato qof dumara inuu yahay qof ragana ay qabsan karta sidan oo kaleeto qof kaliya inaan ku khasisa dooni maayo ilmaha meel baa laga soo heli karaa sidoo kanoo kale uu ku dhalan karaa isagoo ninkii lagu dhalay lalahaa la yaqaanay inkiraad iyo licaan iman kartaa isagoo ninkii dhalay la yaqaano tan hadda lamaba garanayaa laleeyahay buu gogol dhaaf ku dhalan karaa iyo siyaabo lamida intaasi waxaa mideeya sharciga ilmo aabbala-aana wey hadduu aabbihii baabul licaan ka maro aabbala-aan buu noqon haddii meel cidlaa laga soo qaaday waa su-aalahayna soo marayoo hore aabbala-aan weeye haddii laba garanaya laakiin xaaraan uu ku dhalay sharciga loogu abtirin maayo miisaanka sharciga aabbala-aan weeye haddii aan sidan oo kale laba garanayninna isagana aabbala-aan wey isagana aabbala-aan wey hal mas'alo waan xasuusinoo ku noqon maayo ilmaha la soo qaadayo markaan ka soo hadlaynay duruufta nolosha ee hadda taallaay wixii waxaa loo baahday qof walba ID ama document inuu yeeshay qasabtay markii magaalo la soo galay gaar ahaan labada magac ee kale xagee laga keenayaa horaan uga soo hadlayo laba magac oo adoon ilaahay laga dhigay Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan iyo Cabdiqaadir iyo Cabdicaziz iyo Cabdifataax iyo Cabdilxaliim iyo Cabdixakiim iyo Cabdikariim iyo magacyada loogu daraanay qisada horaan uga soo hadalay taasi waa document markuu u baahdo iyo magaca labaad iyo saddexaad inuu sheego hadduu u baahdo waxaa soo haray waalidkii sidaa ku dhalay dee waxay u qasdeen hadduu yahay ficilkanna mukallafna ay ahaayeenna dee way dambaabayaan laakiin toobadu way furanta ilmaha ku dhashay say horta dembi ma laha isagoo hadduu toosnaadana ilaahay agtiisa wixii dadka toosan ay ku lahaayeen buu ku leeyahay isagoo hadduu xumaadana inta xumaatay ilaahay agtiisa waxay ka mudan yihiin buu ka mudan yahay isaga camalkiisay ku xiran tahay ee walaa taziru waasiratun wisra ukhraa mid dambaabta dembigeeda kale ma qaado adiga dembigaagaad qaadaa ee dembi kale ma qaado cid kaa qaaday dembigaagana ma jirto cid dembigeeda kale ku saarina ma jirto aduu haddii dulmi aadan ka gelin dembigiisa laguu saaro marka koowaad waxaan rabaa inaan idhaha dadkaasi iyaguna ha ogaadaan mujtamacuna ha ogaado wax iyagu dembiye eed oy galeen ma laha tan labaadii mushkiladda qofkani ka xanuunsanayo waa mushkilad jirta waxaan ku talin lahaa 3 qodob marka koowaad qofkani haddii meelaad intimaado bulshadu say u aragto meel baa laga kabaa ilaahayna subxaana wa tacaala farajka wuxuu u furaa qofba intuu isaga ka cabsado dadkaasi ilaahay ha u soo laabtaan diinta ha bartaan cizigoodii iyo sharaftooda cabsida ilaahay iyo diinta ku dhaqankooda ha ka doonaan oo ha ka raadiyaan hadday ilaahay diintiisa bartaan kuna dhaqmaan cilmigana ay bartaan waa la cisaynoo waa la sharfiyo xataa booskii aabbaha iyo awowgu cilmiga iyo aqoonta iyo tadayunku u gelayaa taasi waa marka koowaad oo talada koowaad aan bixin lahaa ilaahayna farajka culayska ay dareemayaan adduunkana cabsiduu kaga qaadaa dadka وإلى سبحانه وتعالى عبسيدي سو كربدا كفيدا دنبغنا ku dhaafaa aakhirana darajaadka lagu helaa labada daarood waxay ku liibaanayaan ilaahay cabsidiisa iyo ku dhaqanka diintaas wiilal iyo gabdhaba guud ahaan gaaraan qofka saylka taaba kula talin laha talada labaad ee siin laha waxa weeye markay timaada guurka mujtamaca muslimkihi waa qowmiyad kala duwan iyadoo muslim la wada yahay مجتمع الصومالي gaar ahaan qabaa'ilkiisu say badwiga iyo baadiyaha u sii kala xigaan
bay abtirka iyo magaca iyo reer iyo qodqodkaba ku badan yihiin. qowmiyaadka Soomaali ha noqdaan ama muslim kale ha noqdaan een qabiil iyo abtir raadinin ha ka guursadaan oo ha ku tarmaan. cidina sii qodqodi mayso, cidina maba yaqaanaanba. markastoo magaalada xadaarada dadku ay ku dheeraadaan qabiilka iyo raadintiisu way lumaan iyo dabagalkiisuna wuu qiimo beelaa. hadda tusaale aan siin dadkan soo islaamaya rag baa soo islaama, gabdho muslim oo Soomaali iyo Carabi iyo keyrkood la guursada. gabdhaha soo islaama rag muslim oo Soomaali iyo keyrkeed baa la guursada. yaa weydiiyay abtirkoodii iyo reerkay u dhasheen ma jirto. gabadhu hadday fiicnaato ama wiilku fiicnaado mujtamaca ka waayi maayo. dadka ahlul cilmiga qof iyo laba uu isleeyahay qof cilmi iyo caqli iyo nusxi leh weeye inuu xaaladiisa la socodsiiyo la furdaamiyana waa qodobka saddexaad aan rabo inaan idhaahdo. laakiin adigu tadayunkaagu hadduu fiicnaado dadka mujtamaca baro oo cidda kale qodobkaa saddexaad aan kuu sheegayana kaasho dad cilmi iyo caqli iyo nusxi leh oo wixiina bannaanka dhigaynin xoogga sharcigaana garanaya dadkana mujtamacana caqli uu kugula furdaamiya leh oo kula jooga kaasho. qofku u sheegta xaajadiisa oo wax la furdaamiya kama maarmo. taasi waxay ku anfacaysaa abtirkaaga cidi weydiin mayso. tadayunkaaga iyo dadka kale muslimiinta kugu qaadanayaan meelaha la isfarfaraya dabagelayana ka yar dadbana waa dhinac uga yarbax. imtixaankaasoo kaleetana adduunyada haddii intaad ku sabirto baad ajri ilaahay ka yeelane waxba adduunyaha ka quusan ilaa hadaad ka cabsato sida talooyinkan aad qaadato waxaad isleeyahay adduunkana sacaado iyo liibaan baad isaga noolaan kartaa iyo farxad iyo reynreyn aakhirana ajri weyn baad ilaahay keliisa bilahi tawfiiq.